qorshe cusub ee xeebta liido qorshe cusub ayaa la heli doonaa oo waxaa loo sameyn doonaa 2 albaab shakhsi walbana oo soo galaya $2 ayaa laga qaadan doonaa waa qorshe cusub waa waali cusub ganacsato ayaa loo xiray in xeebta liido ummadda Ilaahay ka dhaxayso Soomaaliya ka dhaxayso in qofka dabaalna lacag laga qaadan doono loo sameyn doono 2 albaab laami la saaro wadada waa filaayay in sheekadan mar uun dhagaha shacabka Soomaaliya ay ku dhici doonto in dadka dabaalna lacag laga qaado ayadoo baddaasi qofna ee qof ka xigid dhalinyarada ma haysan ma awoodaan ma jirto albaabka waa xiran yahay qof walba $2 iyo bixdan oo dabaalna shakhsi walba fiiri xeebta liido maalintii kaliya 500,000 qof ku dabaalata qamiisi jimcaha waa ka sii daran tahay qorshahaasi waxaa wada maamulka gobolka Banaadir filinkan waxaa loo xiraa ganacsato 2 albaab ayaa loo sameeyay soo arkaysan laami ayaa la saaray iridda hore oo banaanka hore si dadka halkaas ugu soo galaan oo halkaas kaar u jartaan si u dabaashaan xaaladka ayaa nooca noqday in Soomaaliya badeedii la iibsanayo bal fiiri oo shakhsi walba lacag laga qaado dabaasha kaliya Soomaalida ayaa badii lacag guleys iska daa ajnabiga halka maraakiibta ajnabiga bilaa shuruud la'aan ee xeebaha dalka Soomaaliya marayaan ku dabaalanayaan Soomaaliga dalka u dhashay lacag laga qaaday heerkaas ayaa la marayaa Soomaaliya maraysa in xeebta liido la saarayo 2 albaab kaliya laga soo galay inta kala xiro doono qof walba laga qaado $2 maalintii meeq lacag ayaa ka soo xaroo karta qamiis jimcaadii lagu dal ka sii daran maxaa gooskay oo maxaa sababay in dhalintii Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhashay in badii laga kareeyo cadaankii ay madowga kana xeebaha Soomaaliya ee dalxiiska marayaan ay wada doobo wataan waxna lacag laga qaaday dhalinyaro badan ayaa arrinkaasi ka soo horjeestay oo aad u caqabad ay ku tahay arrinkaani oo markaan qorshe cusub hirgeli doon wardhow laami la saaro wadada hore oo xeebta liido soo marta wadooyin badan loo sameeyay albaab weyn loo sameeyay 2 albaab kaliya ayaa laga soo gali doonaa xeebta liido sida qorshaha yahay qof walbana lacag ayaa laga qaadan doonaa oo halkaas lacag ay bixi doonaa $2 badeeni ayaa la iska iibsanayaa barfiiri badii aad ku dabaalnahay oo qofna ay ka xigin dabaashi kaliya ayaa lacag iska qaadaya Soomaaliya sida lacag loo raadinayo aad iyo adkaatay oo qof walba si xun ay lacag ku raadinaya arrinkan dawladda kama hadlin madaxda kama hadlin arrinkan hadoo dhaco ceeb weyn ayaa Soomaaliya imaan doonta ayagu mar walba arkay maraakiib ajnabiga ee magaalada iska wareegayaan qofna ala xisaabtamaynin badda isxaabaa iska joogaan kalluunka iska dabanayaan halka Soomaaliga u dhashay Muqdisho dhex jooga oo badda ku aadeen ku dabaasho raba lacag la weydiinaa waa wax ayaan daraa waa wax Soomaaliya jiritaankeeda hoos u dhigaya in arrinkan dawladda federaalka Soomaaliya ee indhaha ka fiirsato ay ka hadleen muuqaalka qabta meel gaarsiiya waa waali cusub waa wax cusub oo Soomaaliya ku soo kordhaya in xeebta liido lacag laga dhigo qofkii ku dabaalanaya Soomaaligii u dhashay dalka iskale Ilaahay badan siiyay lacag laga qaadayo cadaankii iyo gaalka ajnabigaana xeebaha Soomaaliya iska wareegaya mar malaay dabanaya mar sawir ku galayaan waxba lacag laga qaadeen kii u dhashay Soomaaliga u dhashay dabaasho u aadaya hooyada iyo waayeelkaba iyo carruurta yarka dhalinyarada lacag la weydiinayo ariyaa sidaan ay u dhimatay Soomaaliya u dhimatay xaalka iyo Soomaaliya mariyaa noocan waay ganacsato ayaa wax walba loo xiray ayagoo dadka lacag ka qaadaya maamulka lacag indhaha ka geliya ma hadlayaan 2 albaab ayaa loo sameeyay qorshahan sidoo u hirgeli doonaa waxaan macquul ma noqonayso wax hirgalaya iyo wax la sameyn karo habeetay ma jirto in xeebta liido oo Ilaahay wareejiyay intaasoo meel ka dhigay in qof ku dabaan lacag laga qaado qorshahan qorshe socona u meelko waa qorshe istaagi doona sababtoo ah shakhsi walba in lacag laga qaado ma habboona xeebta liido waa meel ugu dabaasho waa meel Soomaaliya ay leedahay halka ajnabiga ee xeebaha Soomaaliya iska dabaashaan si wareegayaan malaa dabanayaan ajuuq la dheen muuqaalka qabta sheegareeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووالي عصب